waxaa jira cunooyin aad ku xoojin kartid awoodda ragnimadaada. Gogosha inaad ku ceebowdo adduunka waa ceebta ugu weyn uu ragga la kulmo. Taasoo dhan waxaad ku xallin kartaa cunooyinka soo socda. Cunooyinka ugu fiican ee ragnimada kordhisa ayaan maanta idinla wadaagayaa ee ila jooga oo dhammayso muuqaalka. Dunidan aan saaranahay 75% raggu way isticmaalaan kaniinka fikraha. Sidoo kale 75% ragga dul saaran dunidan waxay ka cawdaan in ay ragnimadoodu yartahay. Marka dhibaato ma lahan haddii ay ragnimadaadu yaraato waxaa kugu yar nafaqada iyo fitamiinisku u baahan yahay jirkaaga. Looma baahna inaad isticmaasho daawo aan dhakhtar kuu qorin. Waxaa jira cunooyin aad ku xoojin kartid awoodda ragnimadaada. Gogosha inaad ku ceebowdo adduunka waa ceebta ugu weyn uu ragga la kulmo. Ragnimada in ay yaraato waa wax caadi ah, dhibaato ma lahan, balse jooji welwelka. Way jirtaa wayna soo martaa ragga dhammaantiis marka laga tago xishoodka iyo wax kala qarsiga ee ragga dhexdooda. Xaaskaaga kuwaani oo ku amar in ay cunooyinka soo socda kuu sameyso. Beerta marka ay biyo ku filan hesho ayay soo saartaa miro. Marka jirka bini'aadamka isagoon fitamiinis iyo nafaqooyin helin wax soo saar ma yeelanayo. In shahwadaada ama biyahaaga yaraadaan, shahwadaada oo degdegta ama biyo-bax degdeg ah aad la kulanto xaaskaaga oo aad dhinac jiifato waa ceebta ugu weyn ee dunida Allah naguma keenee. Intaasoo dhan waxaad ku xallin kartaa cunooyinka soo socda. Basasha, dangawiiska ama sanjabiilka, qaraha ama xabxabka, ukunta, caanaha, lowska, toonta iyo kalluunka. Sidoo kale waxaa jirto kalluun qaas ah oo loo isticmaalo xagga ragnimada. Haddii aad u baahan tahay waxaad kala soo xiriiri kartaa. midnima adduunyada lagu wada masooba hadduu maanku laban yahay dadku malama yeesheen midnima adduunyada lagu wada masooba hadduu maanku laban yahay dadku malama yeesheen midigtuba miciin male hadday bidixdu maqan tahay.